بسم الله الرحمن الرحيم قصدي وجوب انستيتيوت اوف بروفيشنال يوتيوب شانل ومركل لي 10 كميد 10 امتحانها 4000 سيشن انجلش وادس كاسو ka qaadanay boog oo qoray Paul Nation oo lagu baray afarta kun ee Ingiriiska la isticmaalo ayadoo lagu gelinayo jumlado iyo weerar gaaban haddii aad rabto English speaking practice waliba inaad la samayso dad luqadda u dhashay ama si gaar ah wax lagu baro fadhiga la soo xiriirna markaasi haddaba casharkana maanta waa cashirka sideedaad 4000 essential English words waa cashirka sideedaad waxaana ku yaala page-ka 27 ereyga koowaad ee cashirkeena maanta wuxuu ka bilaabanayaa kelimada 71 taasoo ka dhigan hore u soo qaadanay 70 erey ayaan hore u soo qaadanay ku soo kala duubay 10 video haddaba fadlan hadda danayna kuwaas dib ugu laabo videoda ku jiro channelka ereyga koowaad ee maanta barayna waa issue معناها ده احنا وقتها في صومالان الرين موضوع اما سو صارت الرين يا موضوع واسكو معنى ايشو انا وقتها ما كان نوم قتاي مركي لكن فاب مرة waxay noqotaa verb ka markay tahayna waa soo saarid issue hada waa noun laakiin sidoo kale verb ay ku noqotaa markay verb ka tahay waxay noqonaysaa soo saarid sida document wax la mid ah So now this passport was issued on June 30th. Passport ka waxaa soo saaray June 30. An issue is an important topic. Issue waa mawduuc muhiim ah. Saas ayaan ka dhiganta marka. Issue macnaheedu waxaa weeyaan an important topic. Waa mawduuc muhiim ah. The man spoke about issues that were important to people. Jumlada macnaheedu waxay noqonaysaa marka The men spoke about nimankii waxay ka hadleen spoke waa speak past together issues mawduucyo ama arrimo that were important kuwaasoo muhiim u ah to the people dadka u jeedaa marka issue marka ereygaas wuxuu noqday mawduuc the men spoke about nimankii waxay ka hadleen issues mawduucyo that were important to the people oo dadka muhiim u ahaa erey kale maanta barayna waa naan way ereyga naan macnaheedu waxaa weeyaan waa horta waa pronoun macnihiisana waxaa weeyaan midna it's a pronoun naan it's a pronoun macnaheedana waxaa weeyaan midna naan is a pronoun macnaheedana waxay noqotay midna naan means not any of someone cidna or something ama shay waxna naan waxay noqotaa cidna ama waxana yani midna waxba lama hayo salaan fiiri he spent all his money lacagtiisii oo dhan wuu kharash gareeyay spent waa spend bastigeeda waxaa la spend he spent wuu kharash gareeyay all his money lacagtiisii oo dhan there is none left waxba uma soo harin none waka there is none left waxba uma soo harin waa shid bay ka dhiganta micnaheeda marka ereyga kale waxaa weeyaan patient ereygan macnihiisu wuxuu noqon karaa dulqaad leh ama dulqaad ereygan wuxuu kala noqon karaa bukaan qofka mataqaana isbitaalka jiifo kale ama dhakhtarku markuu ka hadlayo qofka xanuunsan wuxuu dhahayaa patient buu dhahayaa waa patient if a person is a patient qofka hadduu yahay patient they don't become angry ma xanaaqaan or upset ama ma caroodaan easily si fudud marka angry iyo upset isku macno yihiin if a person is patient qofka hadduu yahay qof dulqaad leh they don't become angry ma xanaaqaan or upset ama ma caroodaan easily si fudud waa kana tusaale I had to be patient waxaan ku qasbanaa inaan sabro and wait and sugo until 5 o'clock ilaa iyo 5 to leave inaan baxo marka ereygay oo jumlada loo geliyo I had to be patient waxaan ku qasbanaa uu yidhi had to haddaad maqasho have to iyo has to bastigeeda wey I had to waxaan ku qasbanaa be patient inaan samro I had to be patient waxaan ku qasbanaa inaan samro and wait and sugo until 5 o'clock ilaa iyo 5 galabnimo ama 5 aroornimo to leave saan u baxo marka malaha shaqo adag baa loo dhiibay marka uu samraya marka ereyga kale marayna waa positive macnaheedu waxaa la togan
ama wanaagsan wax wanaagsan wey positive think positively waa lagu dhihi karaa think positively si positive ama si wanaagsan u fikir if something is positive shaygu hadduu positive yahay it's good wuu wanaagsan yahay tusaale fiiri she has a positive future waxay leedahay mustaqbal wanaagsan ahead of her yani horteeda after finishing the college markay dhamayso marka macnaha muxuu noqday she has a positive future ahead of her mustaqbal wanaagsan ayaa ka horeeyo after finishing college markay college-ka ay dhamayso she has a positive future ahead of her mustaqbal fiican ayaa ka horeeyo after finishing college markii ay college-ka dhamayso wey marka erey kale maanta barayno waa punish punish waa ciqaabid waa verb ficil wey punish waa ciqaabid to punish means in wax la ciqaabo waxay ka dhigan tahay to make someone suffer in qof uu u rafaado ama uu dhibaato ka soo gaadho for breaking the rules inuu jebiyo sharciyadii xeerarkii oo laws sharciyada rules waa sharciyo ama xeerar lawsna waa sharci caadi to punish means in wax la ciqaabo waxay ka dhigan tahay to make someone suffer macnaheedu waxaa to punish iyo to make someone suffer waa isku macno marka waa tan waa phrase tan waa to make someone suffer qof inuu u dhibaatoodo ama ku rafaado ama lagu ciqaabo for breaking the rules inuu sharciyadii jabiyey or laws ama sharciyadii marka rules iyo laws waa isku macno waa sharciyo badanaa laws waxaa la marka sharciyada la qoro oo baarlamaanadii waxa ay ansixiyaan to punish me so ii ciqaabo my teacher had me stand in the corner to punish me so ii ciqaabo my teacher had me stand wuxuu u qasbay inaan istaago in the corner jiirada yani ardaygan malaha khalad buu sameeyey meel luuqa ayaa marka istaag la yidhi istaagno halkaasaa la yidhi marka wuxuu to punish me so ii ciqaabo my teacher had made me stand in the corner wuxuu u qasbay inaan istaago jiirada ereygan kale waa represent waa verb macnaheedana waa matalid inaad wax matasho to represent is to speak waa inaad u hadasho or act for a person ama qof inaad wax u samayso to represent waa matalid to represent is to speak for a person inaad ruux hadasho or act for a person ama inaad qof qabto tani waxaad samayn kartaa wax bedelkeyga inaad samayso oo matalan aniga adaa matal waxaan ku tusaalaan saxiix oo kale marka you can present me in signing the document kala dhigi kartaa waka ereyga 77 ee barayno taxaniina kamid waxaa shake waa ruuxid ama gilgilid wax marka la ruuxo ayaa waxaa la shake waana verb to shake is to move back and forth wax in hore loo wado hore iyo gadaal back and forth haddaan maqsho hore iyo gadaal aad bay muhiim tahay ereyga maro back and forth hore iyo gadaal or up and down ama kor iyo hoos marka waxa saa loo wado quickly waliba si dhaqso leh ayaa waxaa la shake ereyga shake waa ruuxid ama gilgilid to shake is to move back and forth in hore iyo gadaal waxaa loo wado marna hore loo kaxeeyo marna gadaal loo celiyo back waa gadaal forthna hore or up and down ama kor iyo hoos loo wado quickly si dhaqso leh ayaa waxaa la shake tusaale waa kale when people shake hands markay dadku iska can qaadayaan oo markay is salaamayaan it usually means waxay ka dhigan tahay they agree way iswaafaqsan yihiin ama way isku raacsan yihiin when people shake hands markay dadku ay iska can qaadayaan waa dadku gacanta isgeliyaan way badanaa way ruuxaan it usually means waxay ka dhigan tahay they agree inay israacsan yihiin ereyga kale aan barayno waxaa weeyaan spread ereyga spread macnaheedu waxay noqotaa faafin ama fidin to spread is to move quickly waa inaad si degdega u aado to more places meelo badan to spread is to move to spread in wax la fidiyo is to move quickly waa inaad u dhaqdo to more places meelo kale I like to spread butter waxaan jeclahay inaan ku fidiyo subaga on my toast rootigayga toastiga waxaa la waxaan mukaatiga asaas rootigaas inaan markaa aan ku fidiyo I like to spread butter on my toast I like waxaan jeclahay to spread inaan ku fidiyo butter subaga
on my toast road trip. ereyga kale aan barayna waxaa ka mid ah waxaa weeyaan stroll waxaa la socod tamashlayn badanaa marka aad socdaal yaroo ku raaxaysanayso soo samayso socod tamashlayn baa la marka ama tamashlayn ama socodka mataqaan inaad xoogaa soo socoto. Stroll means to walk slowly, inaad aayar socoto and calmly iyo weliba si degan. tusaale waa kana my dog and I anigii eygayga strolled waxaan kusoo tamashlaynay through the back jardiinka ama beerti today maanta kujida. My dog and I anigii eygayga strolled waxaan kusoo luga baxsanay waa lahaa ama kusoo tamashlaynay through the back beerta today maanta. ereyga saas macnihiisa. ereyga kale waxaa weeyaan village waa tuulo ama deegaan yar waana noun. A village is a very small town waa magaalo yar weyn. tusaale waxaa yidhi there are only a few house guryo yar unbaa ku yaalo in my village tuuladeyda. aad baad u mahadsantihiin halkaas uu nagu dhamada casharkeeni. fadlan subscribe saar channelkan waayo waxaan arkay dad badan oo dhageysto casharadeeda. subscribe pageka ma saarin, fadlan subscribe saar, like na saar si ay walaalaha kale iyo saaxiibada kale la wadaag. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.